waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan ugu warbixino guud ahaan xaaladda dabaaldegga 1 Luulyo oo dhammaan ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u diyaar garoobeen sugidda amniga iyo ka qayb qaadashada dabaaldegga 1 Luulyo ayadoo taa lagu guda jiro taliska guud ahaan laamaha amniga dalka waxay fariin adag u diri doonaan dadka caadaystay inay xilliyada calansaarka oo saqda dhexe ay iska ridaan xabadaha mar labaad ku celinayna 26 Juun waa jeedinay waxaan soo qabanay ilaa iyo dad 10 ku dhow eedeysanayaal oo xabadahaas riday oo gacanta xeer ilaalinta aan ku wareejinay oo maanta oo joogo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed anaga qofka bini'aadanka kulama shubi karna gacanta waxaan rabnaa inaan u sheegno laakiin ummadda Soomaaliyeed way dhibaysaa ka daa xabada war ka dambeeya ma jiro qof walba haduu askari yahay haduu qof shacab yahay haduu yahay macawiis leeyahay iyo haduu nooc kasta yahayba waxaan fariin labaad oo adag ugu diraynaa in xilliyada dabaaldegga aan la ridi karin xabad sharci dara lama ridi karo dhammaan laamaha amnigana waxay amar buuxa u qabaan qofka xabad sharci dara rido goobta uu joogo in lagu soo qabto eedeysanayaashan hore aan u soo qabanay ee maantay xukunkoodii uu dhacay oo aan ku wareejinay xirlaalinta ayaga la sii falgali doona laakiin haddana waxaan ka maarmi weynay bulshada in inteeda wax garanaysa aan dib ugu celin hadalka 1 Luulyo waa caawa waa habeenkii midnimada iyo xurnimada ay qaateen gobolada koonfureed ummadda Soomaaliyeed halkii aad u dabaaldegaysid inay xuruubeen adigu ha dhibaataynin dhibaata ugu sugan inaad xabad aad u riday kor ay ku soo laabatay bulshada Soomaaliyeed dhibaatayso cid kasta oo isku dayda inay amarka inta jibis xabad ridana waxaan u balan qaadaynaa cid walba oo xabad caawa wax ku noqota in mas'uuliyaddu asaga dusha saaran doono asaga mas'uuliyadaas dusha loo saari doono haday dhimatay haday dhaawacantana ay korkiisa tahay sababtoo ah ciidamada qalabka sida guud ahaan waa lagaaga digay waa lagu sheegay guud ahaan gobolada dalka looguma dabaaldegay in hooyo Soomaaliyeed sokor qabta laga nixiyo xabad laga agrido uma dabaaldegayn in aabba Soomaaliyeed dhiikar qaba uu dhiikarka kaga naxo xabad dushiisa laga riday waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inta aqliga u saaxiibka ah waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan shakhsi kasta oo xabad rida goobta doon ha ka rida soo qaba kuma liini kaliya noo farmuuqo waxaan tiraahdaa shakhsigaas riday meeshaas oo na ka riday waxaan ka qaadi doonaa talaabo ku haboon insha Allah waxaan rabaa inaan uga digo dadka u diyaar garoobay inay xabad ridaan xabada rido haddii aad koonaha magaalada ka rido koonaheeda kale qof shacab oo wax ku waxyeeloobo waxaan kugu eedeyn doonaa in adiga mas'uul ka tahay adigana dusha saaran doona mas'uuliyadeeda mana u istaagayno inaan amarkan dib dambe loo beeniyo oo qof Soomaaliyeed rido war xabadaha walaalkaaga dhibaataynaya ama hooyada Soomaaliyeed iyo cuniga Soomaaliyeed ama aabba xanuunsan dhibaataynaya kadaan ku leenahay hadaad ka deyn weysana insha Allah sharcigan ku qabadsiin doona taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan talisyada laamaha amniga iyo sugidda iyo militariga waraaqa la wadaagnay sharcigaas waa isla qabnaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ma ridi karo xabad sharci dara oo uu ku sheegay inuu u dabaaldegayo xuriyadda dadka aan u dhalinay ee aan rabno inay u dabaaldegaan waxaan rabnaa ayagoo maskaxdooda cabsi ku jirin baqdin ku jirin inay dabaaldegaan marka adigii loo baahnaa inaad dhaliso farxadda iyo dabaaldegaas ina xabad aad kibir u riday qof Soomaaliyeed korkiisa ku dhacda waxaan aqbali karna maaha mana ka yeelayno maxkamad iyo meesha u dambeysana oo kula tiigsanayna insha Allah waxaan diyaar u nahay kuwii hore la soo qabtayna xirlaaliyaha guud ka warbixi doona insha Allah asaga ku soo dhaweynaya laakiin annaga afka ciidamada qalabka sida anoo ku hadlaya cid alla cidii xabad bila sharci dara rida waxaan ka qaadaynaa talaabatan ugu adag ay ciidamada qalabka sida ka qaadaan shakhsi ku xad gudbay shuruucda qaranka waana mahadsantiin